محل وضع وبرنامج كلا عصب waxaan wadnaa barnaamij cusub oo Muqdish Cable or Astan TV jaceelkaaga ama walaashaada waa toosanay ku haysaa salka arinta adi iyo CK maxaysan dadka shacab xiriir ah ma leedahay xafsab meeqasan ayaa jirta markii ugu horeysay oo qofku jeclaado ama aad lagu jeclaado maxaa dareentay السلام عليكم أصحاب تقاليد أمريكا استواء الدنيا كتشوكتان ولكن سلوك ويدين لوقت وحيدين وعناضو أصحابي ما أنت برنامج كنا وحقوه هنسا مستحيل وينه برنامج هو حقوي هي برنامج عصوبي مقعد السنو وحوي فكري فالله وحن كفى لندن waxaan rabnaa inaan tartansiino ama aan ka faaloono youtuberska Soomaalida kuwa loogu jecel yahay waxaan ku tartansiin doonaa fikradaha ay leeyimaadeen ee hirgalay waxa jira barnaamij hirgalay oo bulshadu aad ula socoto hadaba barnaamijyadaas aanu insha Allah tartansiin doonaa shakhsiyada youtuberka anagu kama faaloonayno laakiin waxaan ka faaloon doonaa fikradaha ay leeyimaadeen qaabka ay bulshadu u xiisaysay sida loo daawado fikrada laftirkeedu waxay bulshadu ku soo kordhisay halkan waxaan ku hayaa dhowr youtuber oo isleenahay fikrado la yimaadeen way dhici kartaa qaarkood inaan idofnay idinka noo soo sheegi doonaa laakiin la shan youtuber baan bartan ku soo diyaarinay marka si nasiibiga hadaan raani hebel baan tartansiinayna wax ka sii cadaalad badan oo ka qurux badan inaan si nasiibiga u soo qaadno kaasi nasiiba ayaan waxaan sameyn doonaa inaan isku qasno waraqadahan deetana aynu laba youtuber ka soo saarno labadoodii fikradood aynu halkaas ku faalino tayso sida sheegtay nasteexo hadda miiska waxa noo saaran oo barnaamijkan fikriye faalo noogu martiya waa shan youtuber youtuberka ugu horeeya waa adna channel weyn youtuberka labaad waa Yaxya Hunter youtuberka saddexaad waa Diraac official youtuberka afraad waa Asad Xaajiyo youtuberka shanaad waxa weeye waa Muniir official sababtoo ah Muniir official waxa uu keensaday fikrad la yiraahdo sirta nolosha Asad Xaajiyo isna waxa uu keensaday fikrad la yiraahdo mid dooro Yaxya Hunter waxa uu keensaday fikrad la yiraahdo 15 su'aalood Diraac waxa uu keensaday fikrad la yiraahdo hees noloshaada saameyn ku leh adna waxay keensatay fikrad ah عويسك أدنى مركا شنطة يوتيوبر أي واحد سمعنا سي قرطورة لبا ونسكو أديننا لبنا وسكو أديننا كل كديد قفة موقتها فينال كيمان دونا لبا دا سكو أدا وحن سمعنا دونا ومكفى لندونا فكرته دي بان سوق عادي دونا كديد وحن سمعنا دونا برشدنا رأيقود إن شاء الله وأنا لا دوون دونتا مركا إمك وحن لا يهين نستحى بل قرطور كينو سمع شنطة يوتيوبر مقاعيد ذلك حسين أنت نسكو ولا غضب بل أنا إن شاء الله وكمله halkan aan soo qoray sulubo waan isku laaqay waxay noqonaysaa abaar waxba ku ogeynayna laba inoo soo saarto labadaas ayaa waxay yihiin laba isku aaday labada ay noqon doonaan ilaahay ma ugu in sha Allah way saxda kale iyagu dib ay noogu ooli doonaan marka bal ila fahmasta ودراع دراع كوسو أسد ودراع يا أسد حاجي صباح حتى أسد هذا التاجر وعي لكن يبقى تاجر مش واقع بحسها كسب شخصية اللي ما فعليه فكرة أو كان صغير يلا فعليه أدية وعي مركب واحد سكوا هذه ودراع official يو أسد حاجي واتها سحرية لابد نقول الرياء برامج كل عادي وحوي أسد حاجيو يدرع official إيجا هذا بنقدم لكم ما تلقفان لكن نقول حين دميستري دونا بالسؤال كسر شو صبر بحال فكرة صدق بينه يفعل الضمان صدق بينه هذي لابد كلا يسوق عشان دونا إنه نصبت حبض دافع يحيى هانتر منير باكو حقاقي يحيى هانتر يا منير مركا waxa isku aaday waa Yaxya Hunter iyo Muniir Diraac iyo Asad waxa finaalka fadhiya adna channel halkaas iba ka cadahay warqada ay soo hadhay waxa weeye warqabada quraxayd ee barnaamijka tirkita tamaysay waa adna channel deewaarkiisa nasiibka gees semifinalka anagu ma naangeynin taafta raga ayaynu laba iyo laba uga soo faaloonayna adna semifinalka loo fadhiisa marka labada iminka ka faaloonayna mid baa ka soo bixi doona
kaa ka soo baxay wuxuu ku dhici doonaa labada kale ee isku soo aaday markay tartamaan ka soo baxa labadaas markay isku dhacaan kadib adna u finaalka joogtay iyo labada soo baxay ayaa waxaan samayn doonaa qorituur laba isku aadaya kadib mid waa finaalka sii fadhiisanaya labadaasna insha Allah barnaamijku wuxuu inoo noqon doonaa taxan inoo noqon doonaa insha Allah hadda barnaamijka waxaan ku falanqoon doonaa labada youtuber ee iminka isku soo baxay waa Diraac iyo Asad Xaajiyo barnaamijku waa fikriya faalo channelkaad ka daawanaysaa waa Sulb Official anigoo nasteexay leeyahay Mustafa Sulb ay la socodsiinaya aynu bilaabano labada youtuber ee fikradahoodu isku soo aadeen waa si wanaagsan daawadayaal waxaan doonaynaa insha Allah inaanu tartansiino Master Diraac iyo Master Asad marka anigu waxaan ka faalloon doonaa qaabka tartankuna waxa uu noqon doonaa fikradihii qaab fiidiyoyada ay ka sameeyeen fiidiyoyada views-ka badnaa iyo waxa kale oo sameyn doonaa insha Allah inta fiidiyo uu ka sameeyay kolley fikradu way kala duwan yihiin waxay ka sameeyeen fiidiyoyada fara badan insha Allah socod wanaagsan marka waxaan ku bilaabi doonaa tartanka Diraac baan ka faalloon doonaa horta ninkan Diraac la yiraahdo waxa uu leeyahay fikrad la yiraahdo ma jirtaa hees noloshaada saameyn ku leh barnaamijkaas labadii qof ee ugu horeeyay marka uu barnaamijkaas sameynayay ama uu abuurayay waxay ahaayeen Moohan iyo Sundus wuxuu ka sameeyay Diraac 16 fiidiyoo uu ka sameeyay fikradaas top video views baa jira waxaan soo qaatay 3 fiidiyoo ee ugu views-ka badnaa fiidiyooga ugu horeeyay ugu views-ka badan waxa uu ahaa Najma Cudoon waxaan u ahaa Party 2 buu ahaa waxa daawatay 193 baa daawatay fiidiyooga labaad waa Salma iyo Dayax waa Party 8 waxa daawatay 103 baa daawatay fiidiyooga saddexaad waxa weeye waa Party 10 waa Samira Saacid wey waa Sundus Saacid walaashii waxa ayaa daawday marka wareejin doonaa Nasteexa Sulb wuu mahadsan yahay waxaan hadana ka faaloonaynaa Asad Xaajiyo fikradda awliimi waxa la yiraahdaa labadan mid oo waa barnaamij oo dadka isugu soo barbardhigo laba shay oo kala doorashadooda kugu adkaanayso deedna aad ku khasban tahay mid inaad qaato midna aad ka tagto sabab la'aan qofka ugu horeeyay barnaamijka oo ku furo wuxuu ahaa arrimaheena fiidiyoyada uu sameeyay waxa weeye la qodiskeetan fiidiyo ayuu ku sameeyay barnaamijkaasi gudihiisa inta rag ah ee ka qayb gashay barnaamijka labadan mid dooro waxa weeye 34 xagga dumarku yihiin 74 barnaamijkii ugu daawashada badnaa intii aan Asad Xaajiyo soo barnaamijka labadan mid dooro waxa uu ahaa muddo barnaamijka muddo martada ku ahayd waxa daawatay 622 milyan ha iminka waxaanu isla eegaynaa saddexdii barnaamij ee xagga rag ah ugu daawashada badnaa iyo saddexdii barnaamij ee dumarka barnaamijka ugu soo martay ugu daawashada badnaa xagga wiilasha ka qayb galay barnaamijka labadan mid dooro waxa ugu daawasho badan ama bulshada aad u xiiseynaysa ninka la raadis lacagti waxana daawatay 460 waa ku dhawaad half milyan CK baa ku soo xiga waxa daawatay 480 nin la yiraahdo qurux ku dhiigle ayaa ku soo xiga waxa daawatay 322 xagga dumarkiina eegaynaa ay ka mid tahay gabadha ugu barnaamij oo dhan ugu fiiska badala moodo ayaa hogaaminaysa rag iyo dumar bayada hogaaminaysa waa 622 baa daawatay barnaamijkii laga sameeyay aadiya ubaad aragsan fanaanadaasina waxa daawaday 505 shaadiye sharaf baayadana ku soo xigta oo daawadeen 480 inta waxay noogu xigayaa guud ahaan barnaamijka intii ka soo qayb galay ee laga sameeyay barnaamijka labadan mid dooro waxa ugu fiis badnaa labadan qof ومودين هرو شغني والله 622 ay daawadeen iyo sidoo kale Brisle oo 460 ay daawadeen waa tahay fikradaasi oo Asad Xaajiyo miday in ka faaloonayno xilliga la bilaabay waxay ahayd October 2020 ina waa xilliga qofkii ugu horeeyay barnaamijka lagu soo casuumay taasi waa faaladeeni barnaamijka saanidii sheegnay qaybo badan isugu jiri doona hadaba waxaynu eegi doonaa idinkii anagu qiimeyn baynu sameeynaa intaan idin sheegnay iyo intaad ogeydeenba markaad isku dartaan labada youtuber fikradahooda iyo ma haysata kaalinta koobaad
sidoo kale waxaan qaybaha dambe ku eegi doonaa dhinaca bulshada heeso daawadayaal inta waxaanu sameynay fikradahan wixii xogtooda ayaanu soo bandhigay waxa inoogu xigi doona bulshada oo insha Allah oo aan raygoona weydiin doono labadan youtuber fikradaha ay keeneen waa dareemi kartaano astax waxaan akhriday asxaaji waa madirac baan akhriyay kadib waxaan isu barbardhigi doonaa bal fikradan bulshadu kaba xiiseynaysa qaybta insha Allah rayga dadweynaha wadnala daawo ku saabsan yahay youtuberada Soomaaliyeed waa daawataa Soomaaliya marka labada youtuber fikradahooda ma la socotaa horta niyo hoos saameynta dib baashu tagto oo qof jacayl galin kasta aniga jacayl galin waxaan u codeeyay saxaajiyo mid dooro barnaamijka marka fikradda asad xaajiyo baad u codeysay horta diraac ninka la dhaho hadii suntis garab fadhin aan ma wadaawado wasi wanaagsan halkan suntis waxaan ku leeyahay waa ku jecel oo ku salaamaya garwaan imaanaya hadaad controlkiga hormaan weeyo godobaad iga gash walaal ku soo dhaw barnaamijka fikri faal waan dhawahay walaalo adigoo magacaaga ku bilaabaya magacayga Amiir Ismaaciil Amiir walaal barnaamijkan waxa la fikri faal la yiraahdaa marka fikrada ay keeneen youtuberada Soomaaliyeed waa la socotaa Soomaa si fiican youtuberadaas fikradaha ay keeneen baan ka faaloonayna marka waxaad u kala codeynaysaa labada youtuber asad xaajiyo iyo diraac official fikradaha ay keeneen kala asad xaajiyo mid dooro iyo diraac oo keenay hees noloshaada saameyn ku leh marka labada fikradood baad u kala codeynaysaa horta labada barnaamij waxaan aad u xiisayn jiray barnaamijka asad xaajiyo saasay tahay haddana markii kala codeyn ay noqoto waxaan u codeyn karaa kan diraac sababtu waxay tahay asad xaajiyo qofku wuxuu weydiinayaa inuu kala doorto laba qofood ee noloshiisa xoog saameyn ku yeelanaya ama laga yaabo dadka inay khilaaf ku keento laakiin tan diraac waa wax iska faniyo heest noloshaada saameyn ku yeelto laga yaabo mid aad safar ku sii yar gasho maxaa la dhahay yani aad waqti ku qaadato inaad joos galaysid marka tan diraac baan dooran lahaa marka diraac baad u codeynaysaa si fiican walaal ku soo dhaw barnaamijka fikri faal ما شاء الله سوين وكله marka waxaad noo sheegaysaa labada fikradood kii aad u codeyn lahayd والله أنا أهان وحائل قرح بدنا لها أسد حاجيه asad xaajiyo baad u codeynaysaa سوين ما شاء الله asad xaajiyo baad u codeysay أسد باوع دراع معنا تغيره sax marka fikradda diraac hees noloshaada saameyn ku leh ayaad u codeysay كاسن عودي waxaad noo sheegaysaa labada fikradood tii aad u codeyn lahayd asad xaajiyo codeyn laano sayilata ninkayga asad xaajiyo fikradiisa magacay waxa weeye Cabdiqani Cabdicaziz Ibraahim doonay inaad u kala codeysid labada fikradood keeneen asad xaajiyo iyo diraac official runtii fikradda hadaan ka hadlo yani qaadan lahaa fikradda asad xaajiyo hees saameyntaada ku lehna waxa weeye dadku ma aragtay markay jacayl ay ka waramayaan anigu dhanka jacaylkan u badanahay marka heesta saameynta ku leh barnaamijkaas aad uga helay waxaad noo sheegaysaa labada fikradood haddii aad labadaba daawatay kii aad u codeyn lahayd diraac baan codeynaya anu wadaan mid u codeynayo waa tahay waxoogaa wadaxaajooda markii aan isbarbar dhignay idinka laftarkiina waxaan idin dirnay qiimaynta dhankiina ayaan idinka mid ka soo sameeya aniga iyo suugma qiimayn baan sameeyay haddaba waxaan rabaa inaan idin sheego natiijadii aanu ka soo saarnay ugu horreyn dhinacyada aanu qiimaynta ka eegnay aan idinla wadaagnay fidyada ay sameeyeen ayaanu isbarbar dhignay asad waxa uu sameeyey 18 barnaamij oo ah laba daran mid oro halka diraaca isaga uu sameeyey 16 video halkaasi waxaad arkaysaa asad inuu kaga badan yahay saddexda qof ee ugu daawashada badan ee barnaamijkaasi ka qayb galay ayaanu iyagana total viewskooda isku geynay barnaamijka la yiraahdo laba daran mid oro waxa weeye viewskiisa totalkiisa ee saddexda qof ee ugu sareeyay totalkiisa waxa weeye 1,594,000 halka barnaamijka la yiraahdo ugu saameynta badneyd ee uu diraac leeyahayna total viewskiisa saddexda qof ee ugu sareysa ay yihiin 353 haddaba halkaasi waxaan ka soo saarnay barnaamijka fikirka faalo waxa uu kaalinta koobaad siiyay barnaamijka la yiraahdo laba daran mid dooro uu soo saaray youtuberka la yiraahdo asad xaaji halkan insha Allah de waxaad ka dareemi kartaa qofka ku fidiyo gudaha oo fikradiisa oo fidiyo soo wadiyo wax ka dhigan tahay fiis badan helayo bulsho badan daawata oo helayo guntiga gabadhii annagu waxaanu natiijadii aan soo saarnay bulsho ay ku qaaday masar asad xaajiyo bulshada fikirkeedana waad nala soo aragteen cidii ay codkooda siiyeen marka halka wax ku galay kaalinta koobaad kuna soo baxay asad xaajiyo barnaamijka qaybteena koobaad waxa kaalinta kood ku soo galay masar asad xaajiyo barnaamijku inoo sii socon doona qayb xasaasiya oo sii yeelan doona masar wanaagsan aad iyo aad barnaamijka haddii aad ka hesheen waxay noogu muujisaan qaybta like-ta
haddii ay jiraan waxyaabo anagu aan duufnooda idinku xasuusantihiin commentiga nagu soo xasuusiya qaybta dambe insha allah waxaa labada youtuber isku soo baxay ayaa wada tartami doona barnaamijka la yidhaahdo laba daran mid dooro waasad xaajiye leeyahayna saasoo semifinalka ku tegay walaalkan ibrahim waan habalyayna dadaal fiican buu sameeyey aad baad mahadsantihiin guntiga gunaanadkii waxaan idin leenahay barnaamijku wuu sii socon doonaa qaybo xasaasiya oo sii yeelan doona